رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي مدن عبد الفارح سيدون ساعد أيام أنت وحو حفيزكي سكو قابل وفد كسعود قرمد مذوبي وفد كان كسعود قرمد مذوبي رئيس الوزراء ساعد يا وحا يشان كلن قادنا يساعد يظن كلن كمركي يصيد هذا أي سي ودجير ولا لين صحافة كلن كاس يا وحا جوبجوكا قار كمدا وزير حكومة الدولة فدرالك الصومالية يوليبا إرجي جارك يقابل سنارما الصومالية أغسطين فيلم مهيجا رئيس الوزراء وصحافة الله هذا لا شيء إنه كوضح هذلين وفديكاسي arrimo badan oo muhiim u ah dalka Soomaaliya isagoona sheegay inay wafdigaasi soo dhaweeyeen waxaanu ka wada hadalay arrimo tira badan annagoo runtii mar walba sheegaynay waxa aynu u baahanahay iyo waxa ay siyaasadayadu tahay iyo waxa aanu ka damacsannahay Soomaalida cusub sida aanu u aragno waxaanu u baahanahay in la ka gacansiiyo iyo waxa aynu soo jeedinayno in maaragtay noloku kaadi dhammaan issueski kala duwanaayo aan la hadalay ka hadalay waxaan aad ugu faraxsanahay in si qurux badan loo dhageystay wax badanna aynu isla garanay tanina waxay bilow u tahay sida caalamka Soomaaliyeed cusub uu u dhageysanayo diyaarna ugu yahay inaan maaragtay in la taageero sidoo kale wafdigaasi ka socday qaramada midoobay ayaa dhankooda sheegay inay saf garteen ra'iisul wasaaraha ayna wada shaqeyn doonaan dawladda federaalka ee Soomaaliya with the end of the transition and the beginning of what the Prime Minister describes as the era of transformation. haddaan ay qaramada midoobay waxaa noo muuqatay inay fursad ka jirto Soomaaliya maadaama ay dhamaatay xilligii ku meel gaarka ah. We certainly don't underestimate the challenges that the Somali people still face, but we share a sense of optimism about Somalia's future. ma yaraysanayno markaan saas leenahay ma yaraysayno caqabadaha yaala dalka ama meesha jira ma yaraysanayno laakiinse waxa noo muuqda dareen ah in wax wanaagsan ama meel wanaagsan la gaari karo tani markii ay ka baxday dawladda Soomaaliya ku meel gaarnimada ayna u gudubtay dawlad taama ayaa waxa soo badanay booqashada ufuuda ka kala socotay beesha caalamka iyagoona kulamo la qaadanay madaxda u sareysa dalka si ay u sameeysan lahaayeen xiriir wanaagsan maxamed ibraahim gaabo TV-ga caalamiga ee Royal Muqdisho.